iyadoo ay maalmo kooban ka hadheen munaasabada ciidul adxa ayaa TV-ga caalamiga ee SAB TV u kurgalay dhaqdhaqaaqa iibka xoolaha ee seelada magaalada Cerigabo taasi oo xilligan ay yaraadeen xoolihii loo soo iibgan jiray iyagoo dadka qaar u sababaynaya abaartii dalka ka dhacday waxaana xusid mudan in marka la gaadho sanad kasta ciidul adxa ay seeladu ahayd mid xoolo tiro badan loo soo iibgan jiray waa kuwan qaar ka mid ah dilaaliinta oo ka waramaya xoolo yaraanta xilligani soo food saartay seelada magaalada Cerigabo kal hore iyo maanta in weyn bay isu jiraan waayo maxaa keenay xoolihii oo mataqaanaa ku dhacday abaar ku dhacday oo ka soo daashay oo jabay badigeedii uu jabay haddan wax la jooga xoolihii ay yar yihiin boqolkii 300 marka loo qaybiyo la 3 meelood loo qaybiyo waxay yimaadaan nus meelood baa yimaada warkoodu sidaas weeyo xaq xoolaha sida weeyaan hadii marka warasay sidaas weeyaan sixirkoodii oo kacay maraya neefkii marayo shir Soomaali marka la yiraahdo marayo 800 oo laana ama 1 milyan laana neefka ka hoosana oo marayo 400 oo laana oo marayo warka seeladu sidaas weeyaan warbixin yar oo kooban marka aan ka bixiyo seelada gobolka Cerigabo sida arigu uu yahay sanadka iyo kala hore waxa isu jirtaa firis xoolihii oo kacay iyo hadii aan nahay dilaalintu waxaan idin sheegayaa in iminka xooluhu boqolkiiba boqol ay yar yihiin ayna ku dhacday abaartiina soo dhaaftay sanadkii hore ka dambena aan xagga xoolaha naga soo gelin rafadii ka hore xoolaha ayaa badnaa waa iibkuna muu badnay xoolo way badnaa ama haddeerna iibkaa badan xoolaha la yar عرفت حولا جوجا أريكو واتركز حولا جوجا حولا يرات حولا جري عبارتها ساميسة عبارتها ساميسة رفضاً يعني هراء حلو وكالبديهين رفض هراء حلو بدنا أدر حلو متشران حلو يريهين وراء حلو dhinaca kalena ganacsatada hiliblayaasha ayaa ka cawday kawaanada lagu qalo xoolaha iyagoo sheegay in kawaankii hore lagu qali jiray xoolaha oo ku filan waayay awgeed ayaa ganacsatada xoolaha ishinleyda ay ka cawdeen goob aan ku habboonayn oo lagu qalo xoolahooda taasi oo sababi karta inay ka dhalato caafimaad darro saamaysa dad iyo dunyaba waxay sheegeen inay hore maamulka dawladda hoose u gudbiyeen cabashadooda iyagoo ka gaabsaday wax ka qabashada arrintaasi waa sida ay hadalka u dhigeen waxayna halkaasi baaq dheer uga direen mas'uuliyiinta wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland iyagoo sheegay inay doorkii ay lahaayeen ka wasaarad ahaan ka gaabisay waa sida ay ka dhawaajiyeen waxaana hadaladoodii kamid ah anigoo Asayr Baskar Xasan oo ah hiliblaha ka ganacsada shinka geela iyo lo'da waxa weeyaan anagoo iska waday banaanada iyada ku qalano xoolaha oo dhulka ku qalano jabooyin reerood ku qalano oo daraafada iyadu sidan badhaanto ayaanu dawladdu noo samaysay hangarka weyn waxay isku dareen sayladii xoolaha lagu iibsanay lagu ganacsanayay iyo kawaankii lagu qalayay ee xiriigta ahaa la isku dhex qalay oo la isku dhex dhisay markii halka la isku dhex dhisay geeligi yaarigi kaabada loo sameeyay hangar xiran oo inaan hadeer arag baa loo sameeyay hangarkii bulaacda looma sameyn dhiigii markuu bixi waayay iyo uuskii bulaacdi uu bixi waayay ayaa geelay la yiri bulcooda loo tuuro sababta aad arkaysaan oo waa meeshii geelay lagu qali jiray xeradaas loo sameeyay waa nala soo aftuubay barqa nala soo aftuubay annagoo hadba jaga reer ku qalana oo habeenba meel ku qalana waa la yiri meel baa layna geynayaa meel halkan oo kaabada looga dhisay waxa weeye meesha bulaacada male biyaha qaada beed baa la keenayo hadda xogaaga arigu ay ka qaado deegaankaan u tagnay dawladda hoosaan u tagnay war meesha naga hagaajiyay war waxa wax ka qabta war wax noo sameeya waxaanu cabasho u diranaynaa dawladda dadka wax garadka gobolka Sanaag waa ka xiray dhigtiisii marka ay xanuun qaba ama daanyeer xanuun qaba ama bisad xanuun qaba ama jiir xanuun qaba uu maro goobtii neefka lagu qalay waxa imanaya in ay berri toolana lagu qalo isla goobtii lagu qalo maxay tahay xoolihii halkaas oo uu ka dhasho xanuunada hadeer la aafeeyay dalkeena halkan waxa weeye seeladii Cerigabo gobolka Sanaag xoolaha lagu iibsho laguna qalo waxaan ku codsanaynaa dawladda ama dawladda hoose iyo dawladda dhexeba in nadaafada naloo wanaajiyo waayo kawaankii iyo xeradii xoolaha ay saaran waxay ku seeyaan nadaafad xuma taala cudur oo dhan baa laga qaadayaa
dhiigga aanu ariga ka qallo anigu dumarka ariga qala baan ku jiraa dhiigga aanu ariga ka qallo wuxuu galaa xoolaha halka lagu xereeyo hadduu galona gacanta lagu dhuraa dhaqaatiirta wasaaradaha meel walba hanala ka soo gaaro meeshan saaxumada oo dhibaatadaas naga haysata markaas waxaanu ka horseynaa dawladda hoose maalin walbana meesha way timaadaawo waxay tidhaahdaa waxbaa la qabanaya waxbaa la bedelaya waxna lama qabto waxna lama bedelo xeradhiigtuna waa duleedka geela lagu qalaa bahalahaana cunaadhow marka neefka la burayo qaataba marka xerada iyo kawaanka aad eegto dee waa arkaysaan caafimaad daro duqsiga soo duura geela meel dabadaa loo soofiyaa haddii alla idinka ka dhigayay dhagxyada la saarsaaro hilibka goortaa laga qaado aydaa leefta lama maydho waxna in la yidhahdaan mar walba waxbaan hagaajinaynaa kuyaan u yeedhno oo ah xildhibaanada dee dawladda hoose iyo meelaha waxba ma hagaajaan dhinaca kalena mid ka mid ah mas-uuliyiinta sayladda magaalada Ceerigaabo ayaa isagu iska difaacay eedaymihii loo soo jeediyey maamulkooda waxaan leeyahay waxaas ay dilaalintu ka hadleen iyo dadku waxaan leenahay hadda waa meel ka dhax dawladdu waxay noo qabatay heer weyn bay noo samaysay dawladdii bay noo samaysay hawaanka way noo hagaajisay way ku mahadsan yihiin waxaana waanu ka raali gelinaynaa Siciid Muuse Faarax Saab TV Ceerigaabo.